olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda magaalada Buuhoodle ayaa maanta waxa ka bilaabay dhalinyaro waxgarad bulshada qaybaheeda kala duwan ayagoona si iskood wax u qabsaa u nadiifinaya magaalada Buuhoodle iyo xaafadaha dhalinyaradan ololaha nadaafadeed ka bilowday magaalada Buuhoodle ayaa waxa lagu arkayay jidadka waaweyn iyo waliba sidoo kale xaafadaha ayagoo nadiifinaya ololaha nadaafadeed ee ka bilowday magaalada Buuhoodle ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli roobabkii ay foodeen ugu soo hayaan waxaanu bilownay olole nadaafadeed oo ku nadiifinay wadada halbowlaha waa magaalada ee dhexmarta waxa ka qayb qaatay dhalinyarada magaalada anagoo ah golaha laburka hablaha Soomaaliyeed Lansa Buuhoodle ayaa soo agaasinay alxamdulillah wana noo qabsoomay si qurux badan laamigiina hadda hawshii saacada baan ka soo baxnay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahina wuu magaalada Buuhoodle waxa soo qaban qaadiyeen lagu nadiifinay wadada laamiga dhexmarta magaalada ololahaas kaliya dad soo qaban qaadiyeen laakiin lama kala hayn dhamaan dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle ka qayb qaatay waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada soo qaban qaatay haday tahay awlan shaqa adag oo maanta ka haynay magaalada Buuhoodle taas oo aan ku nadiifinaynay laamiga ama wadada hawlgowlaha ee heewayga dhexmarta magaalada Buuhoodle ee xarunta warkacayn taas oo ay soo fuliyeen ururka hablaha Soomaaliyeed Lansa Buuhoodle loogu magacaabo haldarrada caymeed inta ka bacdi waxaan si mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda ahayd ee rajada wadadii hawsha sida hadaranta kana nadaafay taala ya maxaan kale nabadna ugu soo dhameeyay maanta ololihii aan Soomaaliyeed halbowlaha waa magaalada waxaan ku faraxsanahay una hambalyeynaya dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay waqtigooda quruxda badan oo soo huray si ay u nadiifin lahaayeen ablayo wiilalba waxay maanta saaka aroorta hore u soo kaceen sidii ay u nadiifin lahaayeen wadada halbowlaha ee dhexbarta magaalada Buuhoodle alxamdulillah lixdii subaxnimo hawshay shaqada bilaabeen hadda ay saacadu tahay 12 iyo qadaro ayay ka soo baxeen oo ku guuleysteen shaqada dhameeyaan yadan u kala harin bay dhameeyaan waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha ku nool gobolka Cayn inay ilaaliyaan wadadooda waayo iyaga wadada leh laamiga ah oo ay ka ilaaliyaan waxyaalaha ay ku qubayaan sida xalka biyaha wasakhaysan ee ku shubayaan iyo waliba dhulka biyo mareennada lagu taagay xilliga roobaadka ay ku soo awdayaan ciid iyo wax ku shubayaan Maxamed Ali Bilal magaalada Buuhoodle.